الله الرحمن الرحيم waxaan ka hadlayaa hadal xumada afdheerida iyo asluub xumada ka soo yeedhaysa ina Samatar Cali oo dadku u yaqaanaan Saada Cali Warsame laakiin aan soo ognahayna horena u ogeyn taariikhdeeda waxaan leeyahay baqashii fardalla daaqada faras bay ismoodaa ayaa sheekadayda halku dhigeeda la yiraahdaa hadalkaygan halku dhigiisa waxa la yiraahdaa baqashii fardalla daaqada faras bay ismoodaa waxaan leeyahay ma intii yaraydee deelayda ahayd in cidii ku soo dhiibtayba kula garanayno ee aad barigii ku caayaysay dad ee nasab ah aad muxuu ahaayay ku caayaysay ayaad isku mooday inaad aftaan tahay ama hadal yaqaan waxaan kugula talin lahaa intaad garanaysiyo in ka badan dad garanaya xishoonayo gabdha garanaya xishoonayee haweenka maxaa ka dhex saaray maxaa kolba kugu dara ragga wada hadlaya waxa se isweydiin leh goorma lagu doortay adiga oday beeleed oday Soomaaliyeed oday dadka u dooda xaquuq yaqaan goormaad qaadatay shahaadada looyarnimada waxay dadku kugu yaqaaneen adigu inkastoo ma sumcad wanaagsan lahayn inaad fanaanad heesta tahay ayuun baa lagu yaqaanay goormaad haddaba adiga lagu igmaday inka dambiilaha iyo kan dambiilaha ahayn iyo beelaha iyo qabiilada qaaliga ah iyo dadka qureeshta ah aad afkaaga ula tagtood ku aflagaadayso goormaad heerka gaadhay wax badan baa laga xishooday cashar lama ilaawana ana rabin markii hore inaan kugu qasaarino ayaa hadii aad aamusi weyday aan lagu dhigayaa haddaba wixii aad isla hayso soo diyaarso isku difaaci lahayd ina Samatar Cali heeska aan soo wado na waxa la yiraahdaa magaciisa ina Samatar Cali marka heeskaas oo aan qaadayana isla weekan ayaan dhageystayaal soo deynaya waxa la yiraahdaa habar loo waayay waa hoogaloojid garba la tusaa waxaanu ku leenahay waanu ku dhageysanaynay ilaa maalintii deelidaad ku aflagaadaysay dadka qaaliga ah ee qureeshta ah ehlu karam iyo aqoonyahan iyo wax walba leh ilaa haddana ku dhageysanay dagaaladii iyo waxyaabahan aad ka hadlayso iyo amuurahan cid ku diratay ma jirto adigana waxba lagaaga tashan maayo wax lagaaga tashanayaa ma jirto haddaba waxaan ku oran lahaa anigu xaawileynimaduna iyara dambayso ka dhixin haweenka afkaagana dhowrso hadii kale waxaad noqon doontaa naagtii aflata lihiyo ulimaysa seegta geedkii magool badan iyo geelmaysa seega waa digniin